السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله. إلهي baan ku xamdinaynaa walaalayaal. habeen jimca oo barakaysan masaajidkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ee cibaadada ilaahay loo dhisay allaha nagu kulansiiyey baa mahadle. runtii jazaakum allahu khayran. culammadu wayna la joogtaa, akhyaarteennii, akaabirteennii, culimmadeennii, laakiin annagu waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno uun. almawcidatu tadkiratun lilcaalimi wa tacliimun liljaahili baa la yidhi. almawcida hadday meeli ay ka dhacdo waano iyo naseexo, caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa. jaahilkana waxay u noqonaysaa diinbarashay u noqonaysaayo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iidaysanayaa majliskaas. innakuna waxaan nahayba insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa. insaan, bani aadam, bashar. insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo. oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin. in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin. nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir, xasuusiye. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid. maxaa bani aadanka markaa la xasuusinayaa? bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alle keligii ay caabudayaan. waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can haada gaafiliin. aadam calayhi salaam markii aabbaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyey jabalu nucmaan halka carafaad ay ku taallo, halkaa nebi aadan calayhi salaam oo ku sugan ayaa ilaahay jalla wacalaa dahriga nebi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaaddiisa. markaasaa hortiisa lagu sheedhiyey buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allaahu rabbulcaalamiin, rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday. uuna qirsiiye ilaahay fa ashhadahum calaa anfusihim. markaasaa ilaahay ku yidhi anuu rabbigii ini uumay ee ini arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn? qaaluu balaa bay idhahdeen kulligood. ballankaasaa bini aadanku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan, oo keligii ay adeecayaan, oo keligii ay baryayaan, oo keligii ay isku dhuldhigayaan, oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan. ballankaasi bani aadanku way soo galeen.
laakiin arladan markay yimaadeen basharkii iyo bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'addii uu ku barbaaray ayaa saamaysoo bedishay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa imaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidunbaa xagga yahuudiyadda u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitraddii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah daalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyagoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadanku adduunkan ay yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofku uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadanka saameyn iyo raad ku yeelanaya kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoommihiisa khayr u khayr mirayo oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo 100 iyo intaasoo kun oo nebi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanka uu samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray si bal bini aadankan ballankii ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin ay mar walba u xasuustaan oo qur-aankii aayaadka ilaahay lagu garta bay culimmadu yidhahdeen waa 2 aayadood midna waa middan inala hadlayso waa qur-aankii midna waa middan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa qur-aankan weeyaan haddaad qur-aanka u fiirsato 80% qur-aanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu qur-aanku ka warramayaa juzcamo oo keliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo keliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah caza wajalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa lagaa dhaadhicinayaa towxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata markaa inaad adeecdaa kuu dhib yaraan marka bini aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa 2 weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikaiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaadda aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso 2na weligaa ha iloobin buu ka yidhi 2na ha xasuusan 2da uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi 2 laa tansaahumaa wa 2 laa tadkurhumaa buu ka yidhi 2 weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid
ولقاها حسوسا هداد ومدى أد وناقو سمينيسد إلهي درتي أقو سمي هداد علمي بريسد إلهي درتي أبر هداد إحسان سمينيسد إلهي درتي أقو سمي هداد شفاعات قاديسد إلهي درتي أقو شفاعات قاد هداد واحد ديمينيسد إلهي درتي أقو ديمي وحددك أقبانيسي وناقا marka u horeysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan waliga xasuusan buu ka yiri iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ihsaanka aad u sameynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo منان قالت شيكته إن النقطات هلسته قالت شيكته قالت شيكته نوايو هو إلهي صدح واكي نبي يقولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كل الأضرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايري خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوجين وين خسارين كواسي أيه النبي الله نوشك مركب النبي يقول المنان وكذاتك قالت شيكته أبو رسول كيودي قالت شيكته قفك مر والبدت كذا ده وحسن كوسمي يعني حابن كو قبتي أنا مقال هذا كوسوق لي مثل كلها يا تكلمت بقول أنا قف كدقة كان ما أدري كيف يقول هذا أنا قف كدقة بيقول عمر كور مدمر بوام صداير ليش يعني كلام هذا الير أو بسيطة قفك سد بيروق صباحا يا خطرنا وكوجل يا قف أنا سمي أنا وحكار دقي أنا ضدك كوجو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أهر السبع هذا مدة وحقوق بنا سلاح درت وحقوق أبو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاصك وعجيب الله ينسي إخلاصك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايين أنيق عدك يقول لريبا إلهي إيه شريك يلي عمل كيسا إيه شرك كيسا قيامها وانوغتك با إلهي يلي صدح دقفة أوقوه الرئيسة ونبي قول شيء صلى الله عليه وسلم النار تلقوا توري دوننا وصدح لي وعالم وتاجر صخيها هي نن مجاهدة هاي الله مليني إنه دينه دنتي صدق عمل هو وين بالله إيمانا يان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ما ركتان الصخي مالقبين أيها هاي حوله سوء بحجري صدق ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدق ده عمل بوحة كلنا ما ركتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in laga iraado hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yiri adiguna qaaribaad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan wacdiga markaad jeedinaysid umada wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaas oo umada wax u sheego carab fasiixi ayaa lagu yiraahdaa islahayd كنا وحال أورنا يا أديكوا نن مالك بحياة هيدا مال كستو خير حولها وتكون بحنيسي هذي مساجد هاي هذي مدارس هاي هذي أيتام هاي لكن واحد بحنيس واحد الوسخي هل لقوا يرادو صدح دي الناس واللي يرادون كدوش يديه أكتر إذا واحد كل يدين والنار تكتور الله ورندونا حديث أبا هريرة رضي الله عنه مركو شيء جري وأوي جري وكعي جري ودعي جري ولا كعين جري وأوي جري وكعي جري markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiidka nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay darti ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayayihiin noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan وعلماء وادتك إلهي علمك سيقانا وادتك إلهي يقانا آخرة يقانا شريعة الإسلام كيقانا دتك صوم بددا مركز اللي فمن الملوك كوا هدي عددك الشيكتي هذا بقردنا أيهين مركز يود الزهاد وادتك الزاهدية الدوية كالزاهدي الدوية بدبر كيغا واحد دولي الله وحبا أنا نؤركيني مركز اللي ما التواضع
تواضعنا بالنوشك تواضع محويهي مرقاس يقول التكبر على الأغنياء تتك هانتي لا ياشا أو أكتاد أن وحبا أدو أركن أو أكتاد قيمة أنا كويلا تاسا تواضع ليدا دابو كويلي مرقاس يقول فمن السفهاء تتك السفهاء دون أيهن من قابك عقلك أن لهين الذي يأكل الدين بالدنيا وقفك مقع الدين حنبارسن لكن مقع الدين هدنا دتك أدوية كقدوني وجهي ساد دين أدوية هو استعمالها كاسا سفيها بقولي فنحسن دتك هدان وحق بنينه هدان وحو شيغينو هدان وحبرينو هدان إحسان سمعينو هدان انفاقينينو waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale uu ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu ghil iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaada saliim wakiin nabigu laha xadiis fi sunan nin ahlal janna inagu soo bixi doona nin saxaabada kamida soo galo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nabigu nin ahlul janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nabigu nin ahlul janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay Abdullah ibn Umar ibn Aas radiyallahu anhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yiri aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani أعماش وكم متيستي إنه نقد أهل الجنة هسوء أركتب بكويلي هسوء أركتب بوصلها ياكو خير كي كوكلا ديانين خير كي أوكلا بدينين خير كي إسكاك ديانين إن أقول لكن ما أنت محاكو كلا ديانا نك زمن كي ندت كي أدوية وترتميان أدوية أوكلا بدينين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا لقول صف لنا الدنيا أدوية علي وبالنصفة مركز كل ما أصفها محني وصفيا أولها عناء وآخرها فناء وحلالها حساب وحرامها عذاب بكيري حان أدوية كشة قابلي أول كيك وعناء وتعب والدال بدت كمان أدوية جوجا قفل بودالن يحي إن كيبا دالن وأبيه بدالن وفقير كي بدالن وملقبين كي بدالن ومدحدي بدالن وشعوبتي بدالن وهويا دالن وإننتي بدالن وجامعي كي بدالن وكي مالك هيستا دالن وكي فقير كها بدالن كي ميجا جوجا دالن كي ديار الله وضي بدالن أولها عناب علي بن أبي طالب الدنيا هذا ويديسين أول كي جوا دال وتعب ودال ما بنصنع سامبا ورما لا نستع ما نصنع سي وآخرها فناء حكدن بي دماد أما أذيك دمن أما أدوية كهر دقاقي حلالها حساب تيدا حلال كوكو سوق شين حسابها كدن بيسا وحرامها عقاب تيدا حرام كوكو سوق شين والعياذ بالله هنا وعقوبة أدوية دوش يدي آخر ولا كوكو عقاب حرام تيدا من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بيولي الدون كدوشي ذنك إلى هاي هنتي أوصينا هنتي دا وكفد نوبي حساب يدال يالرفاق يعريري يولول يوالبهار يأسترس يولا هو مكجري كأدوية دا أنا هاي سنة فقير كالنقضين مروق ومكجري سقونا مروق من حساب تهديبها الضوخصي من ولول كيجيبها هيو هالكين كهل هذا أبو هيا تصدق معي الدون كيسكا ميدين أصحاب النبي آخرة يترتميين جنة يوكل بدينيين وفي ذلك فليتنافسه المتنافسون ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدح مع الموضوع اسكوحك تأويري نين أهل الجنة النوس وقال دونا عبد الله بن عمر وحو رادنا يا ننكني وحو كمتيس الجنة ما السبب صدح بين مركو مرتوها وح أعماله الزيادة وإنت يكوب أي قبنيين دافس مركو كوايي أيو يري آباهين اسمان سو ديديني صدح مع الموت والنبي يقول أهل الجنة إنه سو بحي دونا هذا كانوا الناس سو قلي عملك هذا أهل الجنة كن نقطي مقامك كن متيستبع الربعين كا أركي
wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa shanta waqti baa tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leylkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu yidhi intaa aad khayrka aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu qofna caloolxumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qaswad kamida ayaa markuu nabigu qanaa'imtii u qaybiyay saxaabada nin ayaa yiri marka qismadan la qaybiyay lagumana cadaalad falin ilaahay dartina loogama jeedo buu yiri hadalka ayaa lagu leeyahay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam ulu fiirsada nabiga sicatu sadrihi qalbigiisa balladkiisa eeg iyo baaciisa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي هذا الكلام مقلي ورمحاتري قسمة دل قيبيي حولها سنة لو قيبيي لقمنا عدالة فلن وعدالة لقم قيبين إلهي وجهك سنة لو قم جيد بيولي هذا الكلام ورمين تقول لك يا دنبي ابن مسعود رضي الله عنه والله المقرين النبي قالوا الشيخ بيولي مرقاب النبي قالوا الشيخ عليه الصلاة والسلام نبي وجهك سيبا بدل مي مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل النبي يري إلهي رسولك هذه عدالة يكون سميني وآيان وعدالة حقوق كإيماني ويدو أياك له عدالة سمين رسولك يري أرجع مرقو النبي يري أيود ولالكي موسى عليه السلام أنت إن كبنا بالدبي أو صبر برسولك يري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولكن موسى عليه السلام انت اكبنا بيقوم جيسو اي دبان او صبري انا قلنا وصبر يا ابو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحو كودا حسوسا لبنا هاي لوبن الهي هاي لوبن دارتا اخرن هاي لوبن بوكيدي الله والدار الاخره الله وكيكو أبوريكو جرسيي دارتا آخرنا ودارتا كل جنوة النقند ونحق ذي ويان الله وكيكو أبوري محكو أبوري معرفة سؤال هاي كو أبورتي عبادة سائلة هاي كو أبورتي آخرتنا ودارتا الضوامها إلى هاي وكسو جيو الضوامها اللقو حسابي دون ويان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا مال انت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قودا إلا كل مدونان ومال انت ويوم الفصل ومال انت لك لصاري دونو ويان كيف عنائي كيف حمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبن بوكوري لبدا ولغا هاي لوبن الله يكو أبوري هاي لوبن مر والبحصوص نو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حصوص نو هداد أقل جوكت إلهي حصوص نو هداد مسكيت جوكت إلهي حصوص نو هداد عرك جوكت إلهي حصوص نو
هذا دولك جوكت إلهي حسوسنا ولقى إلهي هيلوبن لأن إلهي أذى أبهن قلبك إنه إلهي كبحن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبا نيدو كدو عيسنا يمحيحد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلوبتنا وحي كجر تابو النبي قولي إلهي تبارك وتعالى أصابع دي سلبا أسبوع وكمل كجر تابو النبي قولي يقلبها كيف يشاء صدو دونا إلهي يقلبها صدو دونا يقلب marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga maarifada ii fadhiisi fala nansa ilaahay nama iloobin isagu ku iloobanayna kuma iloobayo khalaqaka fasawaka uku abura uku jirsiyay asbaqa alayka ni'amahu zahiratan wa batinah إلهي نعمتي سواك كهويي تيدا موقتي تانا موقنبا أمني باكو إلهي كسي أمنك يا أمنك نسيه إلهي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واقو أقبر يستيبو نبي يقولي سقو نبض قبع يجركي سيئو بض قبع قوت اليوم كنا مالنتا وحو cunayna haysta buu nabigu yiri nicmadii adduunyada taalo dhan waa la siiyay buu rasuulku yiri waagi ba ku bariyay dadkaagii iyo adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahay na siiyay ilaahay ku mahadiya amniga hala ilaaliyo نعمة إلهي وبحيا نعمة أقوين وإسلامنimada نعمة labaadna culimadu waxay yiraahdeen waa caafimaadka نعمة saddexaad hadii la sheegana waa nabadgelyada رب اجعل هذا البلد آمنا أمنه وقال ويان إبراهيم با ku ducaystay amniga بشو مركي بلاتو نبيكو كدو عيستو يري اللهم هل باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم هل علينا باليمن والإيمان بشي بلا نيسا وحاسونا إنا تكدو عيستد بشاسين بركة كولا دلتا بركة إينا بدقليو إن أمن لدلتو إن أرزاقات بركة لكولا دلتو إن إسلام نمد إلهي كوسوغو إن بدقمنا إلهي كوسيو نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كدو عيسنا لبا شيبو إنما دي سو كدو عيي ماركو بيتك إلهي وكدو عيني لبا دا محي هيد إن إلهي الدرية دي سشركك إلهي وكا إلهي أمن إلهي وصيو وتوحيدك وعسر عيي النبت قل يدي وهي هدان نبت لحيسن سيدان مساجد الله عمر مايو سيدان الله سو شغتك مايو marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyay waxa ka maqan ilaahay un baa ku haya fanasal min allah ilaahay wax walba han weydiisano ilaahay waa hayyi xishood badane adoonka adoo gacmaha kor u qaado iraado ilaahay waxa isii inuu faramadni ilaahay ku soo cesho waa ka xishooda abu nabigu kaleey salaatu wasalaam فلا ننسى بدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمنك يراعين زمنك قار مادة دي باقادتي قار شهوات كي باقاتي بياك سوري دي مركا يا أنستيحين يا أضمغن إلهي مر والبا حسوسنو ذات كان إلهي حسوسي آخرة حسوسنو ذات كان آخرة وقير مر والبا
labada qalbigeena haday ku weynaato macsiyadu way yaraan oo taacada ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay oo aakhirada xasuusan yahay bay culimadu yiraahdeen saddex sifa ilaahay siiya تعجيل التوبة qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yiri qofkaas toobada waa u degdega toobada dib u dhigi maayo uu degdegi sifada labaad ilaahay uu siiyay ma taqaana qofkaas qanaa'atun fil qalbi arzaaqada iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaas raalli ku noqdaa tasaddaxaadna baa la yiri an-nashaatu fil ibadah طاعد إلهي بقفك سوجة جبنانا يا إن الصلاة كود بيراتو وصونك كود بيرادو وقرآن أخرس كود بيرادو وفردك مسكت كو معانا دو ودين تبرشده كود بيراتو وعمل فلك الدين تكو معانا تو وحكينا يا وهدي قلبي يا مرول بإلهي أتكو هيسد آخرته لا يكون هرتالو لبدا سي هدي قلبي يكو يراتنا لبا صدح عقوبة قف كود على صدح عقوبة عقوبة كوباد waxa weeyaan baa la yiri toobadu ayuu dib u dhigtaa hore uu toobad keenay maayo ila waa dhimanaysa ismale wuxuu isleeyahay waa noolaanaysa buu isleeyahay qanaaca ma yeelanayo qalbigiisu qanaaca ma yeelanayo waxa adduunka maal yaalo oo dhan sidoo ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn man helayo halka كقلبيس آخرته كوين تهي عبادتي طاعته ودب يرانا سنة كان وحا كنا عيسى الكسل في العبادة عبادتي إلهي ما كنا قنيس عليس مقداد صحابي قال أورنجري رضي الله عنه أيها هبينك مركو جيب سنة أيو وعلي أوقل قلنجري أساس أوقل قلنجري سيدا دريقا مركب بيها الله صارو دبكو كل زيادة بيهو كرسمان سيدا بيهو أسكو لبا قديان ayuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaa bay xaaskiisu ku oran jirtay maxaa la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku oran jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu oran jiray nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yiri shibta nabi allah ciradii baa kugu badatay bariyahana maxaa jira markaa buu nabigu yiri shayabatni hud wa akhawatuha suratu hud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yiri سورة هود وأخواتها عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة ذها قيامها كور رمايا آية النبي محمد عرادة كسو صاري سورة هود مركي الله بارينا آية النبي محمد عرادة كسو صارتي وحي علماء كل شيئين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawaacan istiqaamada markay culimadu ka hadleen waxay yiraahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yiri qof bini aadana halka dulmar sidoo u soconaya sidoo socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku maraya halka cabsi فاستقم كما أمرت سيدي الله أمرك توصنو حق إلهي إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم هذا هذا بني آدم وحبك كقول شيئين آخرها هدات ماذا هذا وحلقوه حيستو فوكي النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا مياتك عنان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو قفك الدينار يا درهم يا متاع وحبا أنا هيسن مرقاب النبي يقول قفك عيد واكي وبنك قيامه الله يمن دونا صلاة يصون يزكي يحجب الله يمن دونا لكن دad fara badan ba halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkan waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygay buu iga dhacay mid wuxuu iga leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaas la oranayaa waxa li wuxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku galiya markaaba la oranayaa waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtaan ku sheeganaya xaq markaas ilaahay oran doona dunuubta iyagu ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura wal iyad billah
muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa innaku dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka wa biqadri xubuka lilaahi caza wajalla yuxibuka alkhalqu hadba intaad ilaahay adigu aad ka cabsootid ayaa makhluuqun adiga kaa haybisanayaan hadba intaad adigu ilaahay aad jeclaatid ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay ka cabsootid kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid xadiis alquds ilaahay baa le sidaan raba aniga ii yeel saad rabtana anaa kuu seelay sideen rabnaa maanta innaku dadkoo dhan maxay rabaan cidhiidhiga inay ka baxaan bay rabaan faqriga inay ka baxaan bay rabaan dulliga inay ka baxaan bay rabaan masaa'ibta inay ka dhex baxaan bay rabaan diiqu sadriga inay ka baxaan bay rabaan waxalliya waxa aad kaga bixi lahayd cidhiidhiga adduunyada iyo cidhiidhiga aakhira waa maxay xadhigga ilaahay qabso waa tii saxaabigii rabciya ibnu caamir uu u sheegay maaragtaanay madaxayweyntii reer furus rustum allaahu ibtacaanaa ilaykum buu ku yidhi rustum qaa'id quwaat aljeysh buu ahaa rabciya ibnu caamir baa u yimid oo loo soo diro la yidhi orodoo la soo hadal hadday dagaal rabaanna diyaar baan u nahay hadday sulxi rabaanna diyaar baan u nahay rabciya ibnu caamir markuu u yimiday wuxuu yidhi annaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin waxaana dad ilaahay adduunka u soo saaray baan nahay yaana soo saaray ilaahay linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad wa min diiqi اddunya ilaa sicatiha wa min jawri اladyaani ilaa cadli اlislaam buu ku yidhi ajiib waxaan adduunyada annaku iskamanu imane ummad la soo saaray baan nahay oo nebigeedii baa lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaaladda uu gaadhsiiyo ayaa annagana haddaan nahay asxaabtiisii ilaahay baa na soo saaray buu ku yidhi linukhrija man shaa si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan addoommaha sidooda ah oon u saarna maaragtaana cibaadada ilaaha waaxidka waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin wa min diiqi اdunyaa ciriiriga adduunyada inaan ka saarna dadka lanoo keenay buu yidhi annaka oon u saarna ilaa sicatiha nolosha adduunyada ballaceega iyo balladhkeega war gaaladu cidhiidhi bay ku nooshaa cidhiidhi bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi اrisqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicuu ku jiraa sica muminku cidhiidhi ma galaayo nolosha waxa cidhiidhiga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nii saara nolosha adduunyada balladhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri اladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buu yidhi annaku oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawri اladyaan
diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka Rustum bay aduma amiirkii ciidanka tahay may anu mid jamaacada muslimiinta kamid ah baan ahay buu yiri markaas waan soo tashan doonaa iska soco ninbuu u yeedhay markaa Rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan ood la cuntid ood la seexatid ood eegtid deedna marka aad soo noqotood iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninka la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninka jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu ma waraaka ragga aad u tagteen ku diray bal ka waran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billayl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka inagu khamriga aan cabaynana iyagu khamriga ma cabaan halka inagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka inagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka inagu aan kala sarraynana iyagu kala sarrayn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanidin meel kaliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaana ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada inaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaan bay iyagu ay jecel yihiin buu yidhi lain kunta sadaqtanii layamlikunna maa taxta qadamaya haataya buu yidhi haddii aad tahay ka run sheegaya ee sifaadka aad ii sheegaysid ee muslimiinta aad ku sheegaysid hadday muslimiintu sifaadka ay leeyihiin kursigayga iyo khasaa'inta dahabka ee hoostayda taalla maalinay qabsadaanba raggaasi way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada ciziga adduunyada sharafta adduunyada horumarka adduunyada khayrka adduunyada yaalla walaalayaal ee dadku maanta ay raadinayaan ilaahay meel kale ma gelin ilaahay wuxuu geliyey inay ummaddu ilaahay u soo noqoto bas in ilaahay loo soo noqdo atuubu ila allahi jamiican maxaa ku xiga ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun falaax baad doonaysaan haa soo noqda haddaad mu'miniin liibaan doonaysaan soo noqda buu ilaahayna leeyahay jamaacan maaha keli maaha jamcan jamc ku soo noqda ummaddu ha soo noqoto ha toobad keento tuflixuun falaax ilaahay baa falaax sheegay war islaamnimada ilaahay baa ku sheegay in lagu liibaanayo xaya cala asalaa xaya cala alfalax buu mu'adinku leeyahay salaada xaggeeda u kaalay liibaanta xaggeeda u kaalaya salaadu waa liibaan salaadoo la tukadaa lagu liibaanayaa meheradaada oo salaada kugu dhaafta laguma liibaanayo amarka ilaahay oo la qaataa lagu liibaanaa qad aflaxal ayaa liibaanaya dadka iimaanka la liibaanaya salaadii baa lagu leeyahay war liibaanta u kaalay liibaan baa ilaahay sheegay ilaahay baa liibaan sheegaya marka liibaantu diintay ku jirtaa diintaasina alxamdulillah innaka ilaahay diinta uu na siiyey uu nagu dhaliyey wallaahi dadka waddanka ku nool boqolaal kun oo jeer baa la rabaa ilaahay inaan ku shukrino dal diintoodu midaysan tahay caqiidadoodu midaysan tahay madhabkoogu midaysan yahay luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka waad arkaysaan caalamka maanta waxaa ka socda nicmaddaa ilaahayna siiyey inaan ilaalshanaa linaga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caammadeenna iyo culammadeenna tujaarteenna fuqaradeenna odayadeenna dhallinyaradeenna dowladdeenna shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalshanaa laynaga rabaa diintaan seen ku ilaalinaynaa markaas
وأنا قلبي إنه كوين أتدينته كو مركب لبعضنا نلشنا دينته وين كم وقطع ومجتمعنا وين دينته كم وقطع دليردنا وين دينته كم وقطع ويلشنا دين وين كم وقطع قبلهنا وين دين كم وقطع تجارتنا دين وين كم وقطع حكومتنا دين وين كم وقطع مجتمع ديني الله بحياه ومدن اسكو بدشو لأن الزمن كان ما أنت قال لي وزمن كي دين توقف دين هيستون باب بدبادي وجو قف دين هيستون بالجعليه زمن كان وزمن كي دين تويان والنبي قال الناس شيء صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة وزمن أي إيمان يا أبو نبي قولي سنة إذا نكر هذا وانقبسنا يا أول مدي هاي نندا ما حيست السيد دين حجسو وفساد كبدنايا شرك بدنايا شرك بدنايا هذا السنة نولانايا وقت النبي يقول شيء يا كسنة قبسة الزمن كاس وحول مدي نندا ما حيب النبي يقول ما هين كريسد لكن حجسو للعامل فيهن أجر 50 رجلا نك دين السنة ده مركا قبسة كنتن من أجر كود بنبي يقول يو قادنا يا صحابي بصرك عيد من كنتن أنك مسوا كنتن إياك ما يوا كنتن إنك أبو رسولك كويدي كنتن إنك في سنن الترمذي كنتن أصحابتي نبي محمد أجر كودي بقادنا ما أنت الزمن دين تقبسة فنتمسك دين تنا قبسنا إن شاء الله ده هذا دلنا يردنا علماءنا عمدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقول مرتقى علينا أنكو أرضي بان علماء منهن ساجد كان مركز العلمي وما دورنا بكيف إذا ستعلمك هالك علماء أي كبحيان رنتي مركزتو أي جوجان ضدك في الصومالي كوهل مسائش دينك شيخنا جزاه الله خير وهالك كبحنا يو عالم كودن با كفايد استمانت marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin hadana waa talab waa nasiixa weeyaan anagu caamadan wacdina inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxa jirta jumladayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxa jirta tafaariiq layaal Soomaa bagaash layaasha hadee labada ma kala maarmayaan ما كلا مارمان أنا كبر كتفاريق ليال بانا حديث كعلماء عن كم قالوا أيان مالين بتولى جالسين عامة نوحان لنا عاموي علماء قرب حسينه سين قرب علماء وصينا وحي علماء عن كم قالوا مدها جالسينه طفيل بن عمرو الدوسي أنت نبينا وكم مغلي أيو يرتولكي أنا جالسين يدرب كيدي تولكي إني امرؤ لمطاع في قومي nin waxaan ahay dadkiisu aad u dhageystaan nabi Allah oo shaacira idir waadare nabiga sallallahu alayhi wasallam marka abu soo noqdo uu calaamad laygu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsiga dhacday u maleynayaane إلهه النور كهالكن يقاضو جاد الكفرس كي قال لدع يفتين كي يقبل بويدي والله يقبل لي وأنا الشلي إسلامي أي دعاء صلاة أقبل يا إنك أنا دعاء إنك رمضان يا نشلي إسلامه كرامات كدر بك ظاهر إسا ينصر الدين إنك دين الإسلام كقول لنا ما أمن سن دعاء إلا أقبل يا مانت أوتجي وعلى إنك أستولك كرامه ولا تجي كرامه لنبيك كرامه ويديستي كرامة دينا ولا سيئي وعلى إن يربا كسر رميسي انتو دبدا ويديدين مركابو كسر نقد النبي صلى الله عليه وسلم مركابو النبي قوي مدو كويري ريدوس إلهي رسول جيسي وي عاصيين حبار بول النبي الله إلهي حبابيه مركابو النبي قبلة دو جيستي قعمه كرو تاقي صحابة وحي لي النبي قلوا حبار تمايو وحي رادن ريدوس وي هلاك سمين مانتا مركب النبي الله ريد دوسو هذه قلبي وجنا هذيك حياة الله دين تجعل يسيبه يوري مو هبارم سود دعاء ده الرئيس طفيل بن عمرو الدوسي من النبي يقول يا ري هذيك أنا وحى وكور طفيلو مركب المدة خير قادو شيء يسد أرد بربوكيدي أودتك تجعل يسيها فرحين دتك نهجي دعوة أنا يسقي بالله صحي
waana u duceeyey nebigu labadaabuu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reer dows oo abaa hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga ugu keenay iyagoo soo wada islaamay madiinat almunawara karaamadii kumay islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummaddiisa uu gaadhsiiyey innagana maanta intayna raggeena halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxaa laga yaabaa hadday 7 qof aqalka ku soo yeynaysa habeenkii in ama 2 ay ka tukato ama 3 ka tukato taariku salaaqal u dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas-uuliyad culammada keliya saaran hamoodina ummaddan ilaahay baa shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso dee insha allah cilmiga culammada aan ka qaadno ee jumladda kaga qaadno inuu tafaariiq la noqdo ayaa uu diyaar ummadda gaadhsiiyo ya maasha allah allah ina barakeeyo jazaakum allahu khayr sidaad noo soo dhoweysana allah inoo soo dhoweeyo kulligeenna jannatulfirdowsna allah inagu kulmiyo waxa aan ku hadallayna maaragtana wixii aan nasiibnayna ilaahay baan na waafajiyey wixii aan gafnayna waa gaf xagayga ka yimiday ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaynaa وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad